habboon Axmed Cabdi oo ka mid ah hablaha musharaxiinta ah ee xilka xildhibaanimo ee dowladda federaalk ee Soomaaliya 2021 ayaa waxa ay kalsooni buuxda ka haysataa isimada waxgaradka ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo si rasmi ah u soo dhaweeyay habboon Axmed Cabdi inay ka mid noqoto xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya 2021 habboon ayaa waxay si rasmi ah u shaacisay inay noqon doonto xubinta xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku matali doonto gobolada Sool Sanaag iyo Cayn geesta kale waxay kalsooni buuxda ka haysataa shacab weynaha ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo si diiran ugu soo dhaweeyay baraha bulshada iyo sidoo kale meelo badan isla markaana ay ku shaacinayso habboon inay ka mid noqoto xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya 2021 waa habboon Axmed Cabdi habboon ayaa si rasmi ah baraheeda bulshada ugu soo shaacisay inay ka mid noqonayso xildhibaanada cusub ee dowladda federaalk ee Soomaaliya 2021 waxaa si rasmi ah u soo dhaweeyay isla markaana habboon taageeran buu u buujiyay shacabkeeda kala duwan ee ku nool deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn inay habboon ay ka mid noqoto xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya 2021 hadda xilligan waxaa gabagaba ah isla markaana waqtigoodu dhamaaday xildhibaanadii hore ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ku matalayay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn isla markaana aan wax muuqda ka qaban deegaanada SSA habboon ayaa la filayaa inay wax weyn ka qabato gobolada Sool